ma ogtahay in ay jiraan dad ku maqli kara adiga oo ku hadlayo kumanaan eray haddana aan ku fahmayn? haa waan ogahay waana dadka maanta inta badan aynu aragno. mase ogtahay in ay jiraan dad ku fahmaya adiga oo aan ku hadlin hal eray? sax waan ogahay waa dadka loo baahan yahay inaynu soo dhaweysano. haddii aad ka cabsan jirtay kelimada cidlada haddaba ka cabso in ay saaxiib kuu noqdaan dad xun. xaqiiq waa arin mar waliba dhaca. cidlanimada yaysan kula saaxiibsiinin dad xun qiimahaagana aan aqoonin. qof kasta qalad ayuu sameeyaa laakiin taasi micnaheedu ma ahan in ay naftooda u ciqaabaan. qalad aad gashaa ma aha micnaheedu inaad xun tahay ama inaad liidato. ogow aadanaha waxaa loo abuuray inuu qalad galo gafkana wuu dhacaa. mararka qaar dad wanaagsan ayaa sameeya doorasho xun micnaheeduna ma aha in ay xun yihiin laakiin waa in ay bini'aadan yihiin. bini'aadan aan qalad ama gaf aan ka dhacin laguma tilmaami karo bilaadan. waxaa jira 5 kelmadood oo u muhiim ah nolosha. haye inoo sheeg bal aan ku dhagaysanne. waxayna kala yihiin caqiido jacayl, daacadnimo, aaminaad iyo xushmad. waaw waa sidaa sheegtay waana runtaada. haddii ay nolosha intaas ka maqan tahay hadday ka maqan tahayna ma dhammaystirna. waan kugu raacsanahay. ogowna in ay kaa dhiman yihiin wax badan. xabsiga ugu weyn ee uu qofka bini'aadanka ah galo waa cabsida iyo kawalwalidda waxa ay dadka kale ka aaminsan yihiin. ha ka walwalin hana ka cabsanin dadka kale waxay ka aaminsan yihiin. ogow keligii ayaa dunida imaaday keligii ayaa ka tagay. ma ogtahay haddii aad iska hadasho maanta oo dhan in aad ku celcelinayso wixii aad horay u soo tiri? waa sida hadalka badan faa'iido ma laha. balse haddii aad aamusnaato waxaad ogaanaysaa wax cusub. sax aamusnaanta ayaa wanaagsan. dadka qaarkii waxa ay garanayaan magacaaga oo keliya balse ma oga qisadaada. waana dadka aan la yaabay anigu. dadna waxa ay arkaan dhoola caddayntaada laakiin ma dareemi karaan xanuunka gudaha kaa haya. waa sidaa sheegtay inkastoo aniga aanan jeclayn xanuunka qalbigayga inaan dad dareensiiyo balse waxaan keliya u muujinayaa midda wejigayga. kuwa ayaa la yaaban aamusnaantaada balse ma oga waxa maskaxdaada ka guuxaya. iglaney macantu waa sidaa sheegtay xitaa dadkaasi ma yaqaanaan qofkay la socdaan inuu jecel yahay iyo in kale. waxaa jira 2 nooc oo daal ah. haye bal inoo sheeg maxay kala yihiin labadaba? mid waa daal hurdo iyo nasasho u baahan. waaw midna waa daal u baahan nabad iyo nolol. anigu kaas baan u baahnaan lahaa haddaan heli karo.